ayaa sheegay inay sacuudi carabiya samaysan doonto nucleer haddii ay iiraan u suurta gasho. dhaxal sugaha ayaa intaas ku daray in sacuudiga uusan danaynin inuu samaysto nucleer, balse ay hubaal tahay inay dhaqso u samaysanayaan haddii uu dalka iiraan samaysto. maxamed bin salmaan ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu axaddii siiyey telefishinka c b s barnaamijkiisa 60 minutes. qayb hordhaca oo barnaamijkaas ka mid ah ayuu 32 jirkan reer boqor ku sheegay hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullaahi cali khamenei inuu leeyahay hadaf la mid ah midkii uu lahaa adolf hitler xilligii uu naasigu soo xoogaysanayay. faahfaahintiisa ayuu ku sheegay inuu hogaamiyahani doonayo in bariga dhexe uu ka dhigto meel uu isagu leeyahay sidii hitler uu ka damacsanaa yurub, balse ay wadamo badan oo yurub iyo adduun ka mid ihi ay dhaqso u fahmi waayeen khatartii hitler lahaa tan iyo